سؤال لغنا ولا waxaa ka warqabteen guddigii dhexdhexaadinta ee saddexda xisbi iyo madaxweynaha go'aamayna soo saareen 16 bishii 12aad go'aankaana sidaa ka warqabteen saddexda xisbiba way aqbaleen labada xisbi waxay aqbaleen gogashii madaxweynuhu u fidiyey waxaana isugu yimaadeen kulankii koowaad kulanka koowaad madaxweynaha iyo labada gudoomiye ay isla qaateen waxa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood waxaanu ka wada hadalnay sidii loo fulin lahaa saddexdii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga soo celinta komishankii hore iyo muddaynta xilliga doorashada oon ka dambayn 2020 maalinta koowaad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore waxaanu soo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009 ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay iscasilaan 48 saacadood kadib waanu soo nimi madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awoodo carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimid waqtigu ku yaraaday waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo hawlaha kale ee qodobada kalena loo guda galo markaas maanta waxaan isugu nimid kulankii saddexaad oo bishu 13 January madaxtooyada waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada gudoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta madaxweynuhu waxaan ka filaynay the progress report iyo wixii uu qabsoomay waxaana gunaanadkiisa noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo taasoo macnaheedu waxa yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay uga qabsoonto doorashooyin waqtiga ugu degdeg badan ee suurtagalka ah iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacbiga Somaliland inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan waxa kale oo ugu dambayn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan haddii la yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.